warwaadi salaam halkaan raba room igu helay sidii bilaadina anigu ma hayna committee kasta ka soo jawaabta laakiin committee gabal ayaa waxaan arkaa inay jawaab u baahan yihiin oo ka soo jawaabo waana ku raaxaystaa ka hadalkooda qoftaan adaad anu qurux badan ayaa soo dhigay kadibna waxay ii soo qortay reebaadiye gabar ayaa ana loo u galay reer magaal ayaa u qoran loof loo raacay kadib gabar ayaa jawaab siisay gabadhii jawaabta ay siisay iyadoo jawaabtan ka soo bixisay qaraar muxuu iga hayaa naagta nolosheeda beenta ka sheegaysa afaraataga saac hadeerna ninkeedii naag kale ayuu xamar ku aroos horta quruxay waxaan ku leeyahay tan koobaad familiga cusub ee ku soo biira caalamka waxa tira hambalyo sababtu waxay tahay yaan yuuray adiga ayaa iiga warqab badan ninka i qaba shaqadii anigu aan qabsalahayna naaga badan oo adigu aad ka mid tahay yaan yuura ayaa ii qabta dumarku sidoo bilaadan waa labo naagi waa naag libaaxada oo kaymaha ku nool oo og ninkeeda agteeda qaymaha ay ka leedahay oo og qofnimada iyo shakhsiyadda iyo kartida ilaahay siiyay oo og inaan la'aanteed la noolaa karin naagi waa naagtaas taasina ubadkeeda iyo caruurteeda iyo gurigeeda iyo nafteeda ay waqtigeeda gelisaa ee nin islaameed ee hooyo iyo aaba soo tarabiyeysteen isagoo weyn ay shalay wada kula kulantay waqtiga iskaga malumiso maskaxdan iskaga ma waasho naagina waa naag yaan euro oo sidii jiirta camal ay ninkeeda uga daba yuustaa mobilada ayay faqdaa stress ayay ku nooshahay kadibna kumitiyada noocaan oo kala ay gabdhaha ay farxad yar ku tabayso inta iyadu ay la-eed ay ku arkayso ayay kumitiyada u qortaa taasi waa taas horta quruxay waxaan kuugu hambaleynayaa macaan badan in ay tir ninkaagii baa naag aroosay oo sheegtay qirtay ninkeeyo inuu nin raga yahay sababtu waxay tahay sanadkan waxaa jira xabiibti rag badan oo rag aroosay rag badan oo laga roonayaal oo rag aroos jiro ninkeyga haduu sanaag aroosay nin buu aroosi lahaa oo ku faraxsanaa haduu committee maanta halay ninkaagii baa nin aroosay xogaa waxa laga inaan ka nixi lahaa laakiin ninkaagii baa naag aroosay ninku waa nin raga afrayaan ilaahay u baneeyay dumarka mashquulka ku ah ee ka baqa in naag la aroosana wallahi inaana kamid ahayn sababtu waxay tahay waxaan ogahay maalintii oo caloosha hooyadiis ku jiray inuu ilaahay u qoro wada kasto maraayo naag kasto guursanayo iyo tilaabo kasto qaadayo anigana sidoo kale mashquul kuma ihi marka naagtu haday imaatay aad sheegayso xabiibti ilaahay qof go'aan lagu siiyay qofta nuucan oo egna waan ahay go'aan ayaan gaaraya ama xaajigay waan kula noolaani ama waan uga tagi laakiin inta ka horeysa waqti iga lumi maayo xabiibti ku mashquulka nin islaameed ee hooyo soo korsatay ee aan wadanka kula kulmay tan kale oo adiga aan ku sheegaa waxay tahay naagta 4 saac nolosheeda been ka sheegaysa ee ninka habeen kasta naagaha meelaha ku guursanay sababta aad waqtigaada ugu luminayso tobanka isnaaba ugu soo sameeysanaysid tobanka tiktok aad ugu soo sameeysanaysid miishii kartaa yaa qurxay miishii kartaa shalay waxa tiri waa laga tagay maantana waxa tiri waa lagu guursaday intaad wax sheegaysa maanta ugu fiicneedo ninkeyga inuu rageed yahay ayaad qirtay xabiibti marba hadaada ilaahay ninkii baa nin aroosay yaa familiga cusub wada hambalyeynayna hambaliyo shaqada anigu aan qabalahayna yaa yuu rab badan oo adigu aad ka mid tahay ayaa ii qabanayo